Dallada nagaad oo kaashanaysa hay'adda isku xidhka ururada maxalliga iyo kuwa caalamiga ah ee Somaliland Incho Consortium ayaa aqoon-is-weydaarsi socon doona muddo 1 maalmood ah u qabtay dadka naafada iyo kuwa la haybsooco. Kulanka oo ka qabsamay Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa lagu darsay sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka uu keeno xanuunka COVID-19 iyo sidii looga bixi lahaa loogana kaalmeyn lahaa caqabadaha ama culeysyada ka dhasha xanuunkaasi ee hadda hortaagan ama caqabadaha ku ah dadka la haybsooco iyo kuwa naafada ah. Kulanka ayaa sidoo kale laga qayb qaadanayay xuska maalinta naafada adduunka ee 3 bisha Diseembar, waxaana fariin ugu direen bulshada mas'uuliyiinta halkaasi ka hadlay iyagoona sheegay in la ilaaliyo xuquuqda dadka laxaad kala lana kaalmeeyo. Kulanka ayaa waxaa si wada jira u furay agaasimaha dallada isku xidhka haweenka ee Nagaad Marwe Nafiise Yuusuf Maxamed iyo Xaliimo Weheliyo isuduwaha Somaliland Incho Consortium ayaa waxay tilmaameen aad baan idinkaga mahad celinayaa ka soo qaybgalkiina. waa shir ama tababar inoo qaadan doona maalin tababarkaas ujeedadiisu waxay tahay bal inaan ku lafagurno oo aan ogaano xogna ka helno dhibaatooyinka ama saameynta ay ku yeesheen iyadoo marka horeba ay dadka ama la haybsooco ama dadka naafada ahi ay dhibaatooyinkoodu iska badan yihiin ayaa haddana muddo imaka sanada dee waxaa lala tacaalayay dhibaatooyinkan xanuunkan uu keenay COVID-19 iyo dhibkiisa. Marka bal waxaan doonaynay inaynu ogaano dhibaatadii hore dhibaatada ku sii darsantay xaaladaha sida yihiin sida looga bixi karayo waxyaabaha aynu wada qaban karayno inagoo kaashanayna shirkan oo ay soo qaban qaabiyeen dallada isku xidhka haweenka ee Nagaad iyo hay'adda maxalliga ah ee isu keenta ururada internationalka iyo kuwa maxalliga ah loona yaqaano Incho Consortium. waxaanu doonaynay in arinta ama wixii xog inoo soo baxa ay noqdaan wax aynu arrimahaas iyo dhibaatooyinkooda aynu wax kaga qabano. kulli maalin waa waqti yar laakiin haddii aynu waqtigeena ka faa'iideysano aynu maskaxdeena iyo maankeena isugu geyno sidaynu arrimaha uga midho dhalin lahayn wax ku oola ka soo saarno waxa ay noqon doontaa waxa ka soo baxa wix aynu ku shaqeyno oo aynu bulshadeena iyo tabashooyinkeeda aynu wax kaga qabano. waxaan rajaynaynaa muxuu ahayd fikradihiina iyo maskaxdiina markaad tuujisaan waxyaabaha soo baxa inay noqdaan waxyaabihii lagu howlgeli lahaa hadday tahay muxuu ahayd wax qabasho iyo hadday tahay ogaansho xaaladaha lagu jiraba in muxuu ahayd 2022 qorshayaasha la sameynayo ee bulsho iyo horumarineed in lagu daro. intaasi kadibna ka qaybgalayaashii kulanka ayaa halkaasi ka soo jeediyay talooyin kala duwan. danayaashu way fara badan yihiinoo waa baarlamanka waa ururada bulshada waa golaha wasiirada waa xisbiyada waa dhammaan meelaha ay sharcigu ka soo unkumo dhammaantood caqabad bay ku yihiin. qaaraan bixiyaashuna lacag badan kuma bixiyaan naafada iyo minority-ga toona. dhinaca kalena gudoomiye ku-xigeenka dallada haweenka ee Nagaad Khatra Cumar Xasan oo iyaduna gabagabadii kulankaasi ka hadashay ayaa waxay tibaaxday war sanadka dambe san 12 bilood soo socdo inuu action plan iyo qorshe iyo nidaam yeelana hadaynu doono siiraan ku soo ururno waxba uu qaban weyn aynu dhaahna sanadka dambe inuu wax barisad gareynayno dhaahna waxa soo noo qabsoon focuska waxaynu saaraynaa isdhexgalka bulshadu maxay tahay horta waa inaad barataa doorasho hadaa doonayso qofka aad keenaysaa waa kuma amba waa tuma hadaa doonayso inaad laxaadkaaga iyo maxay tahay maskaxdaadan iyo aqligaaga wanaagsan sugayso maxaad rabtaa inaad qabato. wuxuu baan idin kula dardaarmaya qolada minority-ga waxaad la simantiin qabiilada deega Somaliland marka intaad shirtaan oo banaanka isugu wada baxdaan oo meel tagtay magaalada Koonheeda maalin laba geel ku qalataan isu soo analyze gareeya oo waxa tiraahdo war ma laba minority inuu soo saari karnaa mise mid mise waa ban ka badan reerka isaaq la yiraahdo amba daaro la yiraahdo inuu u dhiganaaye saddex baa baynu soo saarnaa